والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo naaru jahannam walciyaadu billah. ilaahay naga najiye daarta ilaahay ugu talagalay gaalada ay cusaada. daartaasaan rabaa inaan ka sheekeeyo wax yar, naftayda naftiina baan ku cabsiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fattaqu nnaara allatii uciddat lilkaafiriin. war naarta gaalada loo diyaariyey mu'miniina idinka iska ilaaliya ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. waa meel dhib badan, waa meel ayadana sidii jannada maaragtayo weyninkeeda loo sheegay ayadana ay saas u weyn tahay oo gaalada boosas waaweyn ay ku leeyihiin walciyaadu billah. nabigeena calayhi salaatu wasalaam jaabir wuxuu leeyahay, abu hurayrata radiyallahu canhu wuxuu leeyahay kunnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, maalmaa ka mid annagoo nabiga la soconno, id samica wajbatan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay jug baan maqlnay buu yidhi, dhawaaq aad u weyn oo jug ah baanu maqalnay. faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi tadruuna maa haada, qaylada dhacayso jugta dhacaysa ma taqaanaan? qaala waxay dhaheen, abu hurayra wuxuu yidhi qulnaa allahu warasuuluhu aclam, ilaahay rasuulkiisa aqaano baan dhahnay buui, ilaahay rasuulkiisun baa garanayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka haadaa xajarun rumiya bihi fi nnaari mundu 70 khariifa, waa dhagax lagu tuuray naaru jahannama lagu tuuray 70 sano ka hor lagu tuuray. fahuwa yahwi fi nnaari al'aan xataa intahaa ilaa qacrihaa, hadduu salkeeda gaaray buu yidhi. jugtaad maqlaysaan dhagax 70 sano ka hor lagu tuuray ayaa hadda salkeeda gaaray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dhagax siduu u socda aad taqaanaan oo rasaas ah ayaa 70 sano u socday. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa meel inkaar badan, waa meel inkaar qabto, waa meel ilaahay dadku uu ku duleeyo, gaaladu ku duleeyo, meel ilaahay ugu talagalay waaye cusaada ah, kuwii asaga wadadiisa diiday oo ku gaaloobay, meel ay ku hungoobaan oo maaragtayo ay ku khasaareen wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu leeyahay, ayagaa loo diyaariyay, gaalaa loo diyaariyay. alla iska ilaaliyo markaan iska wada ilaalino. meel maaragtayo soo dhoweyn leh maaha, meel cunto leh maaha. cuntadeed maxay tahay? laysa lahum طacaamun ilaa min dariic, wax cunto oo meesha ay ku noolaadaan ma laha ilaa min dariicin, cunto dhibaysa mooyaane. cunto ayadaba markay calooshooda gasho dhibayso wey. laa yusminu walaa yugni min juuc, aanan lagu cayiraynin jirka baniaadanka uusan ku noolaanaynin, walaa yugni min juuc, gaajana aan ka saaraynin. wa طacaaman daa gusa, waxay leeyihiin cunto ku marganayso oo halkaa u istaagayso, siduu ibnu cabbaas uu ku maaragtay tafsiiray shawkun yaqifu fi lxalqi falaa yadkhulu walaa yakhruj. waa qodax buu yidhi, cuntada qodax leh oo dhuunta halkaan xaggana uma dhaafayso mana soo baxayso, halkaasay ku margani buu yidhi walciyaadu billah. ilaahay saasuu leeyahay, acuudu billah. wayusqaa min maa'in sadiid, waxaa laga waraabinayaa biyo maaragtay aada u kulul oo ahlu naarka wasaqda oo ka soo baxday jirkooda, ayay taasunbaa laisu waraabinaya, ayagunbaa la waraabinayaa. waxay jirkooda ka soo baxay unbaa la waraabinayaa, biyo kale ma qabaan. acuudu billah. waad ogtihiin dabka hadduu halkaan kugu dhego adiga jirkaaga xataa biyuu yeelanayaa, biyaa ku shubmaayo. biyahaas waa ka duwan yihiinoo malax iyo qashinkooda waay, kuwaasaa la waraabina, biyahay meesha ku cabayaan. waa meesha ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala. wasuquu maa'an xamiima faqaطaca amcaa'ahum, biyo kuleel baa la waraabinayaa. faqaطaca amcaa'ahum, oo mandhecrahooda soo jaraayo, calooshooda markuu gaaro mandhecraha soo daadanaa buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. wain yastagiithuu yugaahuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa asharaabu wasaa'at murtafaqa. hadday gargaar weydiistaan wax waraabiya dhahaan oo oomaan, maxaasaa la waraabinaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal biyahaas iyo xariirtaas
ay leeyihiin. sidoo kale walaalayaal ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman khaffat mawaaziinuhu qofkii miisaankiisu u fududaado khayrkiisu u yaraado fa ulaa'ika kuwaas aladiina khasiruu anfusahum waa kuwii nafsadooda khasaaray wey fii jahannama khaaliduun jahannamana waa ku waarayaan talfaxu wujuuhahum annaar wejiyaalkooda naar baa gubayso wahum fiiha kaalixuuna ayagoo weji fiiqan buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala naarta ay wejiga ka fiiqday hilibka ka qaaday walla fiihi ay muuqdaan. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninka ahlu naarka ah jirkiisa intuu la egyahay jirkiisa waa la weyneynayaa jahannama saasay u weyn tahay wax ay hal mar ay afka gashatay rabtaa marka ilaahay jirkooda waa weyneynayaa marka sidaad ogtihiin ahlu jannadana ayagana saas bay u weyn yihiin oo maasha allah dhirirkooda iyo waatanaan kasoo sheekaynay. abu hurayra wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi dirsul kaafir aw naabul kaafir gaalka ahlu naarka gooskiisa macyihiisa iyo gooskiisa mithla uxud buurta uxud buu leeyahay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam jirki kale iska wadaa gooskiisa liiri mithla uxud wa ghiladu jildihi masiratu 30 jirkiisa kala intuu leeyahay waa meel 3 beri loo socdo oo kala waa sheyga ugu dheereeyo meeshuu 3 beri ku qaadanayo oo kala waa jirkiisa intaas uu leeyahay ciyaadu billah. sidoo kale abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu yiri ما بين منكبي الكافر مسيرة 30 أيام للراكب المسرع قرب كيسو بس هلكو قرب وليه قال أهل النار مسيرة 30 سدح برميلو أسعدون للراكب المسرع قاريقو قد ديريو شيء قد ديريو قفك سارا سدح برميلو أسعدون أكلوا اللي إجي هابو يري نبي عليه الصلاة والسلام وينانتا إنا لله وإنا إليه راجعون. مالك ولا ليال ميشاس وحاليري قالك أنس بن مالك وحلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويري يوتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار نينك أهل النار كأدونك أقول برواق بدنا أقول فعنا أقول لذنا تاجرك أقول قوئة برواق كجرة ولي يسرب أراكين أيا فيسبغ في النار صبغة نار به ساسلو قلنا لقى صار عليه ثم يقال حلولنا يا ابن آدم أو هل رأيت خيرا قط ولقى خير مكسومري هل مر بك نعيم قط برواق النعيم مكسومرتي يقول حلي لا والله يا ربي ولقى برواق مارك إنا لله وحاه المامسسي قالتان قال لي هل مر لقى صار يبو النبي عليه الصلاة والسلام وانك يقول برواقي سنة قاصد أنا المامسس سيدو كلا الحاكم في المستدرك في مستدركه وحلي حاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن أهل النار لا يبكون أهل النار كوينيان حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وهنت كبحيسو هديد دونت لحديق لها دونت ويكسو على بويري وإنهم لا يبكون وينيان الدم بيقبي أوينيان يعني مكان الدمع انتو وهنت انت كاستاكتو كقعدو ayay dhig oynayaan buu yiri markii dambe nabiga kaleey salaatu wasalaam oo intay oynayaan hadis doon la dhigi lahaa doonto ay ku socon lahayd intay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un walaaliyal maalmaha kabida nabiga kaleey salaatu wasalaam bi Sa'id al-Khudri wariyana nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri iftakharat al-jannatu wan-nar nari janna ayaa ma aragtayo waa isu faaneen buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam warkaasay naartu waxay tiri ya rabbi ربي يدخلني الجبابرة والمتكبرين ربي جاي كوي مدح أتكا أو كبرك بدنا ولا كرواي أو بقرنا بدأ اسكو شيء الشرف السوي شيء جاي كواس سو جيلي بايلدا كواسا إجلا يعني كواسا نجيبنا بايلدا
ayadii jannada yani isku fafaaneenay jannana waxay leeyahay rabbiyow dadka ducafada ah fuqarada ah masaakiinta ah anigana kuwaas isoo galaya kuwaasaan maaragtay u nacmayna baa leedahay ilaahu kuwaas soo gili bay leedahay ilaahi baa dhaxdooda kala galay marka sugaa baa leeyahay wala kala galay waxa leeyahay anti cadaabi usiibu biki man ashaa adiga naartaydi baa tay qofkaan rabaan ku cadaabaya وقال للجنة جنة أنت رحمتي وسعت كل شيء هذيك جنة ديبات هاي عدي الربان ونحر سنة يا ولكليكما علي ملؤها لبدي نبو حب لنا إنان إذن بوحيه بإلهي كؤره سبحانه وتعالى labadiina buu xabalana in idin buuxiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah ninka ugu fudud cadaabka maalinka qiyaamo rajulun wa nin oo tuuda'u loo dhigayo dhuxul dhimbil oo maaragtay oo naar ah lugta hoos loo gelinayo yagli minha dimaghu markaas ay maskaxdiisa buraysa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam kaasa u yar oo asagana soo arko inuu yahay qofka ugu cadaab daran inna lillahi wa inna ilayhi waxay leeyihiin qaalada rabbana amatna thnata wahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubina ilahi dambigana waaqiranay faladkan galnay waaqiranay fahal ila khurujin min sabil wadan ku baxna ma leedahay ma jirto ربنا أبصرنا وسمعنا رب يوم إن دهنا كن كأرجنا واحد شيء جهنم ذا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقن ويقيننا إله وجذل الله عليه هذا نعمل صوص بدينا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إله وجذل الله عليه وحان سمين جرنا وحمانتي وان كتجينا إله ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر والعمر بان إذن سو إذن مسنين وجاءكم النذير قف إذن دجنا سو إذن ميمانين فما للظالمين من نصير war idinka oo kale waxa loo gargaaro ma ilaahay leey war nabi baan idin soo diray cid wax idin ka qarisay malaha umri baa lidin siiyay rabbana ghalabat alayna shiqwatuna ilaahi oo baawna madayna naga qalib noqotay wa kunna qawman dallin dad baadiisan baan nahay rabbana akhrijna minha ilahu naga saar fa in udna fa inna zalimun ilahu dan kun noqona ilahu naga zalimina ikhsa'u fiha wala tukallimun warkuhum gooba meesh wiligin ku sii dulqa qud baalidin dah ولا تكلموني مردنبا هذا الكين يا مغلم بإله الله سبحانه وتعالى هذا الكين ودنبا يسو قارن مرك ولا ليال جهنم دت كذا وإينيا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هدان عقل قبل لهن دت كان أصحاب السعير تمنقون لهن إلهي مركز الله فاعترفوا بذنبهم ذنب قوضي قرتين فسحقا كبحيا ميه فسحقا كسي فوقيا لأصحاب السعير أصحاب السعير تا كسي فوقيا أبو إله الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ويعلى عليا مالكي ما خازن النار أيكو على عليا هدنا وعلي يا مالك ليقضي علينا ربك هذا نوتو غيرها نقو حكومه مركز وسغنا وحليا إنكم ماكثون مش والو وراه غيري مجرتو لا يموت فيها ولا يحيى غير مجرتو نولنا مجرتو واسدان بان اهانيسان خالدين فيها ولغين ودكو وريسان النبي عليه الصلاه والسلام وحو شيء سوره او مارتي او ون او كلا ايا موتكي بالكينا ملغي مه موتكي بالكينا غيريدي بالكينا يا سوغو سوره ون او كلا markaas ahlu naarka la hordhig ahlu jannaha loo geeyo xalay ma taqaanan ha waa geeridi way hortooda lagu goro xalay geeri ma jirto khuludun wala maut ahlu jannoy geeri ma jirto meesha lagu wara ogaada markaas say barwaaqa maaratay farax ku sii darayaan kama dhimanaysi meel la waxay arkeen kama dhimanaysan leh ahlu naarka loo keenaya ya ahlu naar ma taqaanan waa geeri meesha ma jirto hortooda lagu gooraya markaas ay xuzni iyo murug ay ku sii ziyaadanayaan والله ليال ميان كو دورانينا تن او تاغيسو ميدان تاغيني ميان كو دورانينا وين لو مارتي الهي اسلامه دوكو سي دمبي اد قبتدba ka soo noqo ilaahay waa ku jecel yahay intay nafta kugu jirto umba wax lagu sheegi kara
كسو الله أبو ربي قاد أسعر غفور رحيم ها إلهي دين بوارد فانتا دهدو حمانتها سي ودين إلهي دين بوارد فهدنا وادرين عذاب كيس وخطروي قبشديس نو ادرنتاي انت انا لو قبني سو لابو waxay bana aadan aad qalad ka gashay maarta afis weydiiso waxa xoolaad ka haysato si rabbigaad u soo noqon subhanahu wa ta'ala rabbigaad wax walbood gashay waa ku dhaafaya dambi bana aadan aad ka gashin baa lagu dhaafay nimoogi waxaad ilaahay ka gashay ilaahay uu ku dhaafaya bana aadan kana dambi dhaaf maartay asaga inaad ka xalaashatid way walaalyaal ka cararno naartaas ilaahay ka carara buy war ka carara waxaad mudanaan waxbaba ka sheegin ahadiistu ku soo arortay ya nabi ali sallallahu alayhi wasallam kamida masaajid ku jiray wuxuu yiri masaajid kan ya kumaankum qofaday ku jirto hal nin oo ahlun naar haduu soo dhaxgalo ku neefsado masaajidkii wax ku jiro dhan way wada gubanayaan buu nabi ali neeftiisa bisa a'uudu billah meeshaas way abuuran tahay way joogtaa dad ay sugaysaa dadka sugaysa adiga ma aha mu'minow kan gaalka laftiisa waxaan leenahay ka soo carar islaamnimada iyo iimaanka soo qaado marka ilaahi subhanahu wa ta'ala naga najeeyo wajazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi